golaha iskaashiga dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa ka digay faragelin ay sheegeen in lagu hayo doorashada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. wariyaheena Maxamed Axmed Maxamed Jimcaale ayaa warka noo faahfaahinaya. warmurtiyeed ay soo saareen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada dalka oo nuqul ka mid ah ay heshay shabakada warbaahinta Shabeelle ayaa waxaa lagu cambaareeyay waxa ay ku sheegeen faragelin dowladda dhexe ay ku hayso dowlad goboleedka Koonfur Galbeed doorashada haatan qabanqaabadeeda ay ka socoto. golaha iskaashiga dowlad goboleedyada oo wadatashi degdeg ka yeeshay xaalad ay ku sheegeen in ay sii xumaanayso ay ku soo kordhay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxay ka soo saareen warmurtiyeed ka kooban qodobadan. goluhu waxa uu sida ugu adag u cambaareynaya faragelinta qaawan ee hoggaanka sare ee dowladda dhexe ku hayaan doorashada la filayo in ay ka dhacdo 17 bisha November dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, taas oo ilaa iyo hadda in ku dhow 100 xildhibaan laga daadgureeyay magaalada Muqdisho lana geeyay magaalada Baydhabo lana geeyay magaalada Muqdisho si loogu qanciyo in ay u codeeyaan musharaxa dowladda, taas oo bedel looga dhigayo madaxweynaha haatan isla markaana dowladdu ay siinayso lacago ay ku sheegeen laaluush. waxa uu sidoo kale goluhu cambaareynaya siyaasadda dowladda dhexe ee ku aadan kala qaybinta shacabka, baarlamaanka iyo xukuumadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, taas oo uusan ku jirin in ay horseedi doonto mooye colaad beeleed iyo burbur sababi kara in mar kale halkaas uu ka qarxo. goluhu waxa uu soo dhaweynayaa iscasilaadda xubnihii guddigii doorashada kadib markii ay u caddaatay in la afduubtay gebi ahaan xildhibaanadii saldhigga u ahaa doorasho xor iyo xalaal ah ee ka dhacda Koonfur Galbeed. goluhu waxa uu ka digayaa in wax kasta oo ka soo baxa doorashada la qorsheynayo 17 November 2018 oo aan loo marin hanaanka u dhigan doorashada aysan dadka reer Koonfur Galbeed aqoonsan doonin. goluhu waxa uu ka digayaa mar kale in wax cawaaqib xumo ah ee ka dhasha faragelinta lagu hayo doorashada madaxweynaha ee la filayo in 17 bisha ay ka dhacdo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in mas'uuliyaddeeda ay qaadi doonaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. goluhu waxa uu horay marar badan uga digay haddana caddaatay qorshaha hoggaanka dowladda oo ay ka go'an tahay in ay buriyaan nidaamka federaalka isla markaana soo celiyaan nidaamkii keligii taliska ahaa ee meesha maanta dalku marayo sababay, loona baahan yahay in laga hortago sida lagu yiri warmurtiyeedka ay soo saareen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada. goluhu waxa uu dadka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in laga hortago in dalku mar kale dib u galo dagaal sokeeye, taas oo ay caddahay in dhaqanka dowladda dhexe uu taas horseedi doono. ugu dambeyn goluhu waxa uu beesha caalamka UN-ka iyo goboleedka IGAD ugu baaqaya ayaa lagu yiri warmurtiyeedka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada in ay ka qaataan badbaadinta dalka oo qarka u saaran in uu dib ugu noqdo dagaal sokeeye sababo lahab dhaqanka dowladda dhexe ku aadan. aad u mahadsan yahay Maxamed Axmed Jimcaale. qaraxyo ayaa lala eegtay gaadiidka cutubyo ka tirsan ciidamada AMISOM iyadoo dhinaca kale rasaas ay ciidamadaasi fureen ay ku dhinteen dad shacab ah oo ku sugnaa degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir. wariyaheena Maxamed Daahir Cilmi Degane ayaa warkan noo faahfaahinaya. sida ay xaqiijinayaan wararka laga helayo degmada Hiliwaa ee magaalada Muqdisho, waxaa waa berigii hore ee saaka qarax xoogan oo loo adeegsaday meenada nooca dhulka lagu aaso la bartilmaameedsaday gaadiidka dagaal oo ay wateen ciidamada AMISOM oo ka soo ruuqaansaday gobolka Shabeellaha Dhexe, kuwaasi oo marayay inta u dhaxaysa Ex Control Balcad iyo Isbitaalka Soos ee degmadaasi. waxaana la sheegay in halkaasi qarax xoogan uu ka dhacay kadibna ciidanku ay fureen rasaas ay dhinacyada u ridayeen, taasi oo dad shacab ay ku dhinteen. qaar ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa dhacdadaasi ayaa waxaa idaacadda Shabeelle u sheegeen in la arkayay ciidanka AMISOM gawaaridooda mid ka mid ah oo qaraxaasi uu haleelay, inkastoo aan la xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ciidamadaasi ka soo gaaray weerarka. hase ahaatee waxaa lagu arkayay isla goobta meydka 3 ruux oo ahaa
dhalinyaradii deegaanka kuwaasi oo la rumaysan yahay inay ka tirsanaayeen dhalinyaradii gawaarida BL-ka wadi jirtay kuwaasi oo ku sugnaa garaashkii ay gawaaridooda kala bixi lahaayeen goob aan ka fogeyn iyada oo meydadkoodana saakii laga soo qaaday goobta qaraxu uu ka dhacay halka laba kale oo dhaawac ahaan looga qaaday goobta oo la gaarsiiyey cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho mid ka mid ah uu cisbitaalka ku geeriyooday taasi oo ka dhigaysa tirada dadka meesha ku dhintay 4 ruux iyo 1 qof oo ku dhaawacmay sida uu xaqiijiyay mid ka mid ah dhalinyaradii ku sugnayd goobta weerarkaasi uu ka dhacay walaal wax ka dhacan degmada Huruwa qaasatan inta u dhacayda soos iyo ex control ma garad waxa weeye salaad subax salaada lagu jiro markii macnaha meesha la isku qabanayay kulli xabada saayid ayaa dhacay xabadihiina waa fahmi weynayba amisoon kaligeed inay xabadaha iska fureyday in iska horimaad oo ahaa kulli horta meesha qarax weyn baa ka dhacay ma garad hadda kulli meedadkana 3 nin meesha hadda laga soo qaaday garaashayna baabuure ay ahaayeen garaash meesha oo la yiraahdo Abduqaadir Agdegi garaash la yiraahdo ay baabuurtooda ku xareystaan ma garad meedadkoodii hadda dhawaa meesha laga soo qaaday si dhiira loo soo qaaday ma garad hadda 2 nin oo kale hore dhaaba ahaan loo qaadayna waa la sheegay nin oo ku dhintay isbitaalka ma garad hadda waa walaacaas ayaa ka dhacay degmada ma garad wallahi waa saas way qaraxaas waaye macnaha ayay qasaaro wax soo gaaray ma kulli ma fahmi karno ayagoo meesha joogin aan tagnay wuxuu kulli qaateen ma fahmi karno oo kulli qasaare soo gaaray amsan ma garan karno laakiin dhinacaas ka imaadeen dhinaca ku aadan balcad ma garan goobta weerarku uu ka dhacay iyo qaybo kale oo kamid ah degmada Hiliwaa ee magaalada Muqdisho ayaa saaka shacabka ku nool waxa ay muujinayaan cabasho iyo walwal iyo walaac xooggan oo ku aadan weerarada ciidanka amisom xilliyada ay dhacaan rasaasta shacabka sida ula kaca ciidankaasi ay ugu furaan iyadoo dhowr jeer hore weeraro noocaas oo kala ah rasaastii ka dambeysay dad shacab ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen iyadoona arrintaasi wax war aysan ka soo saarin taliska ciidanka amisom ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya waxaana xusid mudan in dhacdooyin hore oo sidan oo kala ahaa ciidamada amisom gaadiidkooda dagaalka uu jiray dad shacab ah ay ku dhinteen magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya sidoo kalena ay jiraan rasaas ciidankaas ay fureen oo ay ku dhinteen muwaadiniin Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan iyada oo laga sugayo dawladda federaalka Soomaaliya in cadaaladda la soo taago cid waliba oo dil geysata haddii ay tahay dad ajaanib ah iyo haddii ay tahay dad Soomaaliyeed xiisado siyaasadeed ayaa xalay ilaa saaka ka taagan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyadoo dhinaca kale murashax Shariif Xasan Sheekh Aadan uu si gaara ula kulmay xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka ee maamulkaasi dhinaca kale senator ka soo jeeda gobolada Koonfur Galbeed ayaa waxa uu ku baaqay inaysan dawladda federaalka Soomaaliya gacmaha ka laaban hardanka siyaasadeed ee ka taagan magaalada Baydhabo xildhibaan Axmed Macalin Cumar Axmed Nadiir oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee golaha aqalka sare ayaa ka hadlay jahwareerka siyaasadeed ee saameynta ku yeeshay doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed xildhibaanka ayaa mas'uuliyad darro ku tilmaamay iscasilaadii xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed isagoo sheegay in aan la aqbali karin caqabad ku timaada doorashooyinka maamulkaasi waxaan isleenahay guddiga doorashada ee Koonfur Galbeed uu gudoomiyaha baarlamaanka uu magacaabay runtii waxaan ka dareemaynaa mas'uuliyad darri baan ka dareemaynaa maxaa yeelay mas-uuliyaddii la saaray waxay ahayd mas-uuliyaddii ugu sarreysay doorashada Koonfur Galbeed inay maaragtay maamulaan sidaa darteed in ay intay isku raacaan intoodii maaragtay gudoomiyihii iyo team kamid ah inay intay isku raacaan yiraahdaan waan iscasilaynaa waxaan isleeyahay runtii waa arrin oo aan fiicnayn oo aan isleeyahay ma ahayn sidaas ma ahayn inay u dhaqmaan mas-uuliyadda sibay u dhaqmeen runtii awooddii la siiyey ee baarlamaankuna uu siiyey yani guddigaas doorashada inay iyagoo isku duuban inay doorashadii hogaamiyaan ayaa laga rabay laakiin waxaan isleeyahay siyaasiyiin oo Koonfur Galbeed inay arrimahaasi waxaan isleeyahay waa aniga aragtidayda waxaan leeyahay inay ka dambeeyaan arrintaas ayada ah maxaa yeelay shalayba waxaan ka digaynay marar horaan waxaan ka digaynay inaysan dhicin khalkhal gelinin oo aan la siyaasadeynin doorashadaasi dhinaca kale xildhibaan Axmed Nadiir ayaa ugu baaqay madaxda qaranka in ay soo farageliyaan arrimahan Baydhabo ka socda ee saameynaya doorashada
maadaama ay dowladdu mas-uul ka tahay waddanka. ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ee ku sugan deegaanada maamulka koonfur galbeed ayuu xildhibaanku si gaara uga dalbaday in ay il gaara kula socdaan dad uu sheegay inay kicinayaan falal amni darro ah si ay caqabad ugu noqoto arrimaha doorashooyinka ee maamulkaasi. laakiin waxaan aaminsanahay nimankaas odayaasha meeshaasii joogay inay maaragtay ay yihiin kuwa waxaan yani aan isleenahay ay la rabay inay xakameeyaan maaragtay doorashadaas iyo amnigeeda inay xakameeyaan la rabay. runtii arrintaas waxa weeye waxaan isleenahay waa arrin khatarteeda leba aan isleenahay kana dambeeyaan aan isleenahay si toos oon u tilmaamayna annaga siyaasiyiintii deegaanka soo jeeday baan nahay. waxa dhibaatada ku dhici kartaana waxa weeye waa shacabkii annaga aan matalayna aan madaxda u ahayn waay. saa darteed inay koonfur galbeed ay dhibaatadaas ka dhacdo raalli kama noqonayno oo ay maaragtay u horseedaan inay dhibaato ka dhacdo maamulka koonfur galbeed mana ka qaadanayno. saa darteed waxaan rabnaa mas-uuliyadda ciidamada qabarka siday kuwii militariga iyo kuwa booliiska aha iyo amisomba inay arrintaasi ay runtii aysan khalqan iyo nabadgelyo la-aan inaan loo horseedin oo ammaankooda iyo nabadgelyadooda inay nabadgelyada deegaankaasi iyo magaaladaas baydhabo inay wax ka qabtaan aad iyo aad u rajeynayna insha allah hadii la yaraado. dowladda dhexena waxaan rabnaa doorkeeda waddanka ayadaa madax ka ayadaa dowlad ka mas-uuliyadda maanta meeshaas ka dhacdana mas-uuliyaddeeda ayadaa qaadanaysa haddaysan wax ka qabanin. waxaan rabnaa dowladda dhexe inay mas-uuliyaddaasi iyo khalkhalkaasi deegaankaa lagu riday ayadaa dowlad ka ayadaa waddanka madax ka inay arrintaasina runtii ay maaragtay ay dowladda dhexena ay mas-uuliyaddeeda qaadato arrintaasi dhibaatada meesha kasoo socotay dhibaatadaasi saysan oga dhicin in maaragtay maxaan ku yidhaha doorashadana waktigeeda ay dhacdo maaragtay maxaan ku yidhaha cid kasta oo khalkhal ku wado iyo dhibaato ku wadana inay ka qabato qofku rababa ha ahaadee inay ka qabato dowladda dhexaa laga rabaa. madaxweynaha galmudug ee dhowaan lagu doortay degmada cadaado ayaa waxa uu sheegay inaysan shaqadiisu u hakan doonin kulanka xaaf iyo golaha ama wakiilo ka tirsan beesha caalamka ee shalay ka dhacay magaalada gaalkacyo. waryaheena mahad maxamed cabdiraxmaan ayaa warkan noo faahfaahinaya. axmed baasto madaxweynaha maamulka galmudug ee dhowaan lagu doortay magaalada cadaado oo waraysi gaara siiyey idaacadda shabeelle ee muqdisho ayaa ka hadlay kulankii ay wada qaateen madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo weliba xubnihii ka socday qaramada midoobe kaasoo shalay ka dhacay magaalada gaalkacyo. waxa uu sheegay in arrintaas siyaasad ahaan aysan waxba u dhibeen isagana uu sii wadan doono hooshii loo igmaday. shacbigana wuxuu u baahan yahay dowladnimo in la baro. shacbigu wuxuu u baahan yahay khilaafkiisa in la dhammaystiro. shacbigu wuxuu u baahan yahay in cadaalad loogu garsooro. shacbigu wuxuu u baahan yahay dhibaatada iyo colaadaha ku jira in laga saaro. aniguna intaas baan u taagnahay inaan qabto baarlamankana ka hor sheegay layguna doortay horena aan u qabtay haddana aan qabanayaa. marka shacbiguna taageero buuxdaan ka haystaa anoo ah axmed baasto madaxweynihii galmudug oo la doortay si sharci oo dastuuri. waxaan marka dowladda dhexena qirayaa hanaan dowladnimo oo dowladdii dhexoo dalka maamulaysa inay tahay iyadana inaan ku ixtiraamno kula shaqayno ayana diyaar baan u nahay. marka ma filayo wax caqabada iyo wax dhiba oo aniga iga hor imaanaya mar haddaan shacbigiina u shaqaynayo dowladnimadana aan ogolahay maanta in la toosiyo la wanaajiyo la taageero. uma arkaya dhib inaan kala kulmayo. waxaan filayaa labadaba kalsoonidooda inaan helayo aniguna aan si kalsooniga ugu shaqaynayo. shalay magaalada gaalkacyo waxaa ku kulmay wakiilka gaarka qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas haynsom madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf iyo weliba xubno kale waxaana la sheegay inay ka wada hadleen khilaafka dowladda dhexe iyo weliba maamulka galmudug xilligan ka dhex jira. in ka badan 20 ruux oo ka mid ahayd xujaydii soomaaliyeed ee sanadkan ayaa weli ku xaniban dalka sacuudi arabiya. jaamac ayaa warkan noo faahfaahinaya. xaaji cabdibaasid cabdi yuusuf oo ka mid ah xujayda haatan ku xaniban boqortooyada sacuudiga oo la hadlay idaacadda shabeelle ayaa sheegay in xujaydaasi dhibaato ka haysato sidii ay dalka soomaaliya dib ugu soo noqon lahaayeen maadaama waajibaadkii xajka ay guteen. xaaji cabdibaasid ayaa xusay in shirkadaha duulimaadka ku howlan ee gudaha soomaaliya ka shaqeeya ay ka been sheegaan adeega duulimaadka marka ay xujayda loo soo qaadayo xajka islamarkaana ay ka waayaan adeegyada ay u baahan yihiin. waxaan nahay nin oo xujay oo u haray dhanka caafimaadka waxaan ku dhownahay hadda ku dhawaad 20 iyo dhowr xujay. waxay u badan yihiin dad waayeelo ah oo xanuunsan qaar
90 jir ah aan hadda kula hadlayo waxaan wada aaday oo 90 jir ah oo xanuunsan marka waxaan soo diyaar garoobay aniga qaasatan 5 Oktoobar aan u diyaar garoobay xamar ku soo noqday haddii aan xafiiskii keentay shirkadda oo daala aan tegin waxay dhahaan aniga flight ma hayno diyaaradii way maqan tahay waxay imaanaysaa xujaydan ku xaniban boqortooyada sacuudiga ayaa dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay shirkadaha duulimaadka culays lagu saaro sidii ay xujaydan 20 qof ah dalkooda hooyo sidii dib loogu soo celin lahaa wallahi warbaahinta waxaan ka codsanayaa gaar ahaan idaacadda Shabeelle inaan waa dhibaataysanahay dadku waxa ku jiro dad waayeelo ah dad qaarka xataa la sheegayo dad waayeelo ah oo xaajiya oo guri kaga jiro xataa inuu waasho xataa ay sheegayaan dadku aad u dhibaataysan yihiin dowladda waxaan ka codsanayaa gaar ahaan wasaaradda qaabilsan inay si u degdegsan laga soo gaaro oo shirkadihiina keenana lagala hadlo oo dadkan wadankan ku dhibaataysan qaaran guryo lahayn qaar oo cudurro kula dhaceen aad aan dhibaataysanahay shirkad noo gargaaraysa iyo safaarad noo gargaaraysa midnaba ma hayno marka inaad akhbaartaas naga gaarsiisaan oo wasaaradihii ku shughulka lahay sida ugu dhaqsiyaha badanna aanu laga soo gaaro saas baan codsanaynaa tan iyo markii waajibaadka xajka uu u soo idlaaday muslimiinta daafaha caalamka isaga imaaday ayaa dib ugu laabtay dalalkooda hooyo balse xujayda Soomaaliya ayaa dalbanaya in laga gacan siiyo sidii ay dalka Soomaaliya dib ugu soo noqon lahaayeen halka wararkaasi subaxnimo dhageystayaal aad kala socotaana waa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho